taliska booliiska galmudug ayaa waxa ay soo bandhigeen askari sida la sheegay faraxumeeyay gabadhadeedu aad ay u yartahay askarigaasi oo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 12aad Axmed Cabdisalaan ayaa faahfaahinaya iyadoo baryahan dambe ay soo badanayeen falalka xadgudubka lagu geysanayo dumarka Soomaaliyeed ayaa maanta waxa saldhigga booliiska ee degmada Cadaado lagu soo bandhigay shakhsi ka tirsan ciidamada 12aad ee ku sugan magaalada Cadaado kaas oo kufsi u geystay gabar yar oo 6 sano jir ah Faisal Daahir oo ah adeerka gabadhan yar ee xadgudubka loo geystay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay qaabka ay wax u dhaceen 29 bishii 2017 ay dhacday qorshahan ka dhacday degmada Cadaado sidaad la socotaan qolooyinkiina media koleyba waa ka warqabtaan gabadhan dhinaca miligiga fadhiisana anigu aan adeerkeed aan ahay ayaa lagu kufsaday magaalada Cadaado qayb kamid ah shakhsiga kufsaday ma ahayn shakhsi shacab ah ee waa nin ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee qaybta 12aad ee safadigeeda ama xarunteeda hadda uu yahay 12aad gabadha dimaag uga fudubtay bac ayaa afka loo guray xiligaas dada guriga joogay awood ee ku hadasho ama ee ku qeyriso ma aysan yeelan waana nin shakhsi tababaran oo dawladda kamid ah weeyaan koleyba qaab loo tababaray xiliyada qaarkood ay ku qaban karaan ayuu sitay gabadha dhaqaaqeeda iyo codkeeda iyo waxaan maana dareemin nin askari ayuu ahaa waa qabtay banaanka la tagay koleyba falkaas argagixisada foosho xun oo dalka iyo ciidanka waa aad uga argagaxan uga xumaaday shacabka ayaa gabadha yarta qabsaday ninkii markaa dalku ku sugan yahay ninka wuxuu ku sugan yahay saldhigga Cadaado ee booliiska degmada Cadaado ciidanka amniga booliiska ayaa hadda gacanta ku haya waxaana ku soo wareejiyay oo soo qabtay oo gacan midig ku soo qabtay 12aad horinta 12aad ee ka tirsan maamulka Galmudug isla markaasna unugtii habeenkaas waadi koolbada haystay iyaga ayaa ka dhidi kan xumaaday kan kargilibay gacanta midig ku soo qabteen waxayna ku sugeen booliiska degmada Cadaado gacanta ay u gulsheen hadda taan xarunta saldhigga ciidanka booliiska degmada Cadaado ayaa kiiskaas baaray gacanta ku haya 22 bisha 2017 abaarihi 1 saac iyo 15 daqiiqo habeenimo xilli xoolaha ariga la horeeyay raashin siinayay ayay lama maqal dhawaaqeeda lama maqal fardaheeda waayo waa shakhsi military oo tababaran lama ogaan karo cidda uu gacanta u qabto wuxuu afka ugu guray waa system anaka aan aqoondaana shacabka iyo deegaanka bac ayuu duubay afka ayuu u qabtay shacabkan waa ka saar sanka iyo afka waxay qatar u gashay inay ku geeriyooto awood uu ku qabtay caburta uu sameeyay ku dhimatay qatar weey ilaahay ayaa badbaadiyay wax uu haran lama arko isbitaalka la geey la baar ma nool gabadha dib xaq noqon doonta ma naqa gabadha yartaan dhinaca fadhida gabadha waa gabadhan bishaar raaga Cabdisalaan yiraahdo waa 6 sano jir waa gabadha ujeedaan jugtii afkii iyo iyadana dadaan hadda gaari lagu keenay 3 tilaabo ma qaadi karto aan keekaado waa dhibaysan suuliye ma geli karto dadtaan waa dirinta dhanka kale taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska degmada Cadaado Gaashaanle Cumar Macallin ayaa sheegay in shakhsigan ay u gudbin doonaan maxkamadda sare ee maamulka Galmudug waxa uu intaas raaciyay inay jiraan shakhsiyaad loo soo qabqabtay falal amni darro ay ka geysteen gudaha magaalada howlgalladii baryahan aan ka wadnay magaalada waxaan u soo qabanay oo hadda xiran nin habeen hore rasaas la dhacay ciidanka booliiska uu xiran yahay gacantaana ku soo dhignay waxa kale oo jira dad falal amni darro magaalada ku waday waa soo qabanay waxaa hadda taagan oo aan gacanta ku haynaa nin ciidanka militariga xoogga dalka qaybta 12aad sidoo noo sheegay ka tirsan ama saraakiishii noo soo dhiibtay ay noo sheegeen ninkaas wuxuu suubay gabadha yarta oo hadda taagan horteeda oo jirka oo saqiirka ah ayuu wax fal ka baxsan shariicada islaamka oo xadgudub ah oo ku xadgudbay waxaana qabtay qaybta 12aad ururka 43aad unugtii habeenkii waardiyaha leh ayaa qabatay iyo saraakiishii militariga waxaana shalay fog noo soo dhiibay abaar 2 saac taliyaha ururka Xasan Diini iyo jananka militariga haysta Ciro iyo taliyaha saadka ayaa noo soo dhiibay isagoo habeen hore la xiray gabadhaas waa 6 jir gacantana ku haynaa waxaana hadda baaristiisii iyo dhammaan dokumentigiisa gacanta ku haya dambi baaraha saldhigga dhamme Ali Cabdi Ismaan waxaanan u gudbinaynaa hadii Ilaahay idmo shariicada islaamka wabillahi tawfiiq
waa markii ugu horeysay ee fal noocan oo kale ah oo ka dhaco gudaha magaalada Cadaado waxaana sii kordhaya tirada dumarka ah ee Soomaaliyeed kuwaas oo xadgudub lagu geysanayo dhammaan gobolada dalka. Axmed Cabdisalaam Khaliif, Somali Cable TV, magaalada Cadaado.